in suntaas uu u dhinto waxa kale oo nala xaqiijiyay in aadan madoobe dhiiggii dhammaanba laga shubay in uu ku jiro koomo oo ilaa shalay ilaa maanta in uu hadlo iska daayay xitaa inuu gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe ayaa haatanba waxaa la soo sheegayaa in uu u dhaxeeyo nolol iyo geeri taasoo lagu sheegay in maalmihii u dambeeyay uu ku xanuunsanayay magaalada Muqdisho kadibna loo soo qaaday dhankaas iyo dalka Kenya ee magaalada Nairobi arrimo dhowr ah ayaa isa soo taraya oo sheegaya in xanuunka Sheekh Aadan Madoobe uu ka dambeeyay taasoo lagu sheegay in Sheekh Aadan Madoobe xanuunkiisa ay ka mid tahay shirqool isaga loo dhigay haddaba arintani aynu isdul istaagi doonaa barnaamijkan ayaana falanqeyn qoto dheer ah kaga sameeyay doonaa daawadayaal ku soo dhawaada channelka oo subscribe saaro like-neyno saar asxaabtadana la sii wadaag gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe ayaa xaaladiisa caafimaad aad haatanba loogu diiranayaa kadib markii sidaan horey idinkugu soo sheegnay ay xaalada caafimaad darro ay soo wajahday dadkii ka agdhabaa gudoomiyaha baarlamaanka ayaa waxa ay xaqiijiyeen in mar qura lagu soo booday gudoomiyaha sidoo kalena ay xaaladiisa caafimaad ay noqotay mid aad u daran kadibna loo soo dhoofiyay dalka Kenya ee magaalada Nairobi si looga tacaalo xaaladiisa caafimaad haddaba arrimo xog ah oo sir ah oo soo baxaya ayaa waxay sheegayeen in gudoomiyuhu lala doonay in la suneeyo sidoo kalena ee loogu daray cuntadiisii uu cunayay sun taasoo loola jeeday in gabi ahaanba gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe laga takhluuso haddaba arintani sirta ayaa waxaa soo shaabacaysa kadib markii maalimo dhowr ah uu Sheekh Aadan Madoobe ee xaaladiisa caafimaad ay aad uga sii tarayso dadyo kala duwan ayaa haatan babraha bulshada soo dhigaya warar ay ku sheegayaan in ay Sheekh Aadan Madoobe ay xaaladiisu aad u daran tahay sidoo kalena la sumeeyay arintani soo shaacbaxday ayaa waxaa laga hayaa qaybo isaga ku dhawaa gudoomiyaha oo soo shaacbixiyay arintani kadibna sheegay in gudoomiyaha baarlamaanku lala doonay dil taasoo ahayd in naftiisa lagu kharijiyo haddaba gudoomiyaha baarlamaanka ayaa haatanba waxa ay khalalaaso siyaasadeed kala dhaxmareen isaga iyo Xasan Sheekh kadib magacaabistii ra'iisul wasaaraha cusub ee Xamse Cabdi Barre oo isaga uu sheegtay gudoomiyaha in uu doonayo in 10 xubnood oo kamid ah in uu gudoomiyaha baarlamaanka loo dhiibo uu isagana soo magacaawdo maadaama 10 xubnood uu sheegtay gudoomiyaha in uu wato lana doonayo in wasiiro looga dhigo haddaba xukuumadda cusub ee Xamse Cabdi Barre hortaalo ayaa ka hor imaadiyo dhanka Xasan Sheekh iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka ayaa isku yimid kadib markii la sheegay in halkaasi uu khilaaf siyaasadeed dhex yimaaday haddaba maxaa isku keenay khilaafka siyaasadeed iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka xaaladiisa caafimaad siyaasadda Soomaaliya ayaa waxa ay noqonaysaa in midba nin waliba uu ka weeraro sidii uu wajigiisa is hormootini lahaa kadib markii la ogaaday in gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe loogu daray cuntadiisii sun kadibna gudoomiyihii oo maalinkaasi caafimaad qabay isla habeenkii ay ku soo kacday xaalad caafimaad darro markaa kadibna xaaladiisa caafimaad dalka magaalada Muqdisho wax looga qaban waayay xaaladiisa caafimaad looga qaban waayay magaalada Muqdisho waxaa loola soo cararay dhankaas ee magaalada Nairobi haatan waxaa la soo sheegayaa oo xoogina soo gaaray ay sheegayaan in gudoomiyaha Aadan Barre ay xaaladiisa caafimaad ay aad mid u liidato ay tahay arrinkani ayaa soo baxaya xalayto ilaa iyo maanta oo ay dhex wadaan gudoomiyaha in xaaladda caafimaad oo aad u liidato uu ku sugan yahay dalku waxaa ka maqan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kalena waxaa ka maqan gudoomiyaha baarlamaanka
waxaana haatan dalka madaxweyne ka ah Sacdiyo oo ah gabadh gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ah oo iyadoo haatanba shalayto lagu buunbuuninayay Facebook kadib markii dadka qaarkood ay sheegayaan buunbuuninta gabadhaasi oo ah in kusimaha madaxweynaha ay haatanba ay tahay ay dalkana madaxweyne ka tahay lagu qariyo xanuunka gudoomiyaha baarlamaanka ee Sheekh Aadan Madoobe. Arrintani ayaa haatanba soo shaacbaxayso walow ayna si dhab ah uga hadlin qaar ka mid ah gudoomiyaasha baarlamaanka Soomaaliya sidoo kalena xoog hoose oo sir ah oo ay sheegeen kuwa iyaga ka tirsan baarlamaanka in gudoomiyaha la suneeyay sidoo kalena gudoomiyaha xaalad caafimaad liidata uu ku jiro ayaa waxa ay la wadaageen qaybo ka mid ah kuwa bulshada arrimaha soo bandhiga. waxaana media haatanba haysta jow kala duwan oo muuqaalka horey idiin soo gelinay uu idiin sheegayaa in wali gudoomiyaha ay xaaladiisu tahay mid aan caadi ahayn oo u dhaxayso nolol iyo geeri. gudoomiyahani ayaa si aqlabiyad ah kaga soo baxay kuwii la tartamayay ee doonayay gudoomiyaasha baarlamaanka kadib markii gudoomiyaha cusub oo baarlamaanka uu noqday. haddaba ku-xigeenada Sacdiya ayaa iyaduna wali ka hadlin xanuunka loo qaaday ee dalka Kenya loogu geeyay Sheekh Aadan Madoobe gudoomiyaheeda baarlamaanka wax war ahna ilaa haatanba kama soo bixin. arrintani ayaa noqonaysa mid siyaasadeysan kadibna hadhow ku noqoni karta ra'iisul wasaarahani cusub in ay u noqoto caqabad horfadhida. Aadan Madoobe in la sumeeyay Kenyana waxay qayb ka tahay sida la sheego meelaha siyaasiyiinta Soomaaliyeed lagu sumeeyo ay tahay in suntaas uu u dhinto. waxa kale oo nala xaqiijiyay in Aadan Madoobe dhiigii dhammaanba laga shubay in uu ku jiro koomo oo ilaa shalay ilaa maanta in uu hadlo iska daayay xitaa inuu neef. ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iraahde ayaa wali aysan ansixinin gudoomiyaasha baarlamaanka isagoo labada aqal ee baarlamaanka uu la kulmay sidoo kalena ka doonayo in ay siiyaan codka aqlabiyadda ay ansixiyaan. lama ogo in ay ansixini doonaan walow la sheegayo in khilaaf siyaasadeed uu halkaasi ka jiro. haddaba arrintani iyo xanuunka Sheekh Aadan Madoobe waxyaabaha ka soo kordho halkani ayaynu idinkula wadaagi doonaa saaxiibayaal inala soo jooga oo subscribe noo saar like noo saar asxaabtaadana la sii wadaag. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.